munaasabadan ayaa ahayd mid ay mas'uuliyiinta wakaalada biyaha Burco ay ku soo bandhigayeen qalab kala duwan iyo baaburr ay ku soo kordhiyeen wakaalada. Munaasabadaasi ayaa waxa goobjoog ahaa wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland, gudoomiyaha banka dhexe, mas'uuliyiinta gobolka Togdheer, kuwa degmada Burco, shaqaalaha wakaalada biyaha Burco. Waxaana ugu horeynta halkaas ka hadlay maareeyaha wakaalada biyaha Burco, Cabdixakiin Maxamed Maxamuud, iyo ku-xigeenkiisa Sakariye oo ka warbixiyay qalabkan kala duwan iyo baabuurta ay ku soo kordhiyeen wakaalada. halkan waxa yaala qalab kala duwan oo uu bangigu wakaalada hore ugu mariyay inuu lacag ka sii bixiyay oo alaabta ku soo iibsanay. lacagta waxaan soo siisanay qalabka arkaysaan oo ka kooban 1936 xabo beeba oo isugu jira 8 ilaa 1 inch. waxa kale aan soo siisanay 3 mishiin oo waaweyn. mishiinka koowaad waa 350 kFA, 150 kFA iyo 66 kFA. waxa kale oo iyana halkan noo yaala 3 bam oo kala ah bamka 20 motoriska iyo 2 midho 18. waxa kale oo halkan ku aragtaan fitness kala duwan oo 150 xabo ka kooban, saacadihii haday tahay ilbiyadii, haday tahay air valveski. waxa kale oo halkan inoo yaala cagaftaas aragtaan oo aan ugu talagalay inaanu biyaha magaalada wixii dhiman ku qabtiro. 2 gaari oo probogosa oo aan ugu talagalay iyagana qaybta biilka uga adeegno. beebka 1956 xabaahi celcelisaan wuxuu magaalada biyo gaarsiin karaa 12 kilomitir oo square oo magaalada. iyagana aanu halkan ka dhigi doono wakaaladu fulinaysa 3 xafiis talagalay farsamada. waxa kale oo iyaguna saakano xariga nooga jari doontaan ceelbiyood ay wakaaladu fulisay hore u dayacnaayo intuu dib u habeyn ku sameeyno saaka isaguna noo diyaar. waxa kale oo saaka loo dhex dhigi doonaa ceel aanu imika qodayno oo ay kaashatay wakaalada hay'adda Wolfish oo iyadana aanu 100% lacagta wakaaladahan bixinayno. qalabka halka yaala alaabta ku baxday waxa weeye 189 oo dollar baan soo siisan. lacag bangigu naamahayna wuxuu ahaa 160 dollar. labada marka la kala gooyo 28,700 inaanu wixii naga dhinmay markii aan alaabtii soo iibsanay wixii dhinmay anagu wakaaladahan ku sii bixino. badan oo Burcaan u shaqeynayna waxaan u baahanahay goobta aan u shaqeynay inaan qurxino oo dhisno. waxa iyaguna halkaas hadalka iska daba maray maayirka magaalada Burco, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer, gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada, gudoomiyaha banka dhexe iyo wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland. mas'uuliyiintaas ayaa si wada jir u bogaadiyay mas'uuliyiinta wakaalada biyaha Burco jidka horumarka leh u jeexeen muddadii xilka hayeen. qaranka Soomaaliland kiishad kale male waa bangigaas. hawshaas sida u wado aad u wadato waa kugu hambalyeena. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala kula garab. dhalinyaradan wakaalad shaqadoodii bay ka soo baxay. qofku markuu shaqadiisa ka soo baxana waa congratulation baa leeyahay, waa la hambalyeeyaa. waxa hesheen shaqaale aan isleeyahay halkaas idin gaarsiiyeen. wakaalada biyaha qalabkan casriga ah ee quruxda badan uu maalgeliyay banka dhexe aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ka gobol ahaan. farxad weyn bay tahay maanta horumarkan ay sameysay wakaalada biyaha ee Burco. waanu ku hambalyeeynaa in bangigii uu mashaariicda noocan oo kale aynu fulin karno. wakaaladana waxaan leeyahay hore u soo socda. banku runtiisa la sheegay uu sii maalgeliyay waanu sii horumarinay oo lacagta beri dambe ayaana siin doonaa. banka dhexe lacagtii badnayd ee banka soo gashay waxaanu ku maalgelinaa ama sii horumarinaa mashruucyada dawladda. sanadkan 12 milyan oo dollar ayaan mashruuc kala gedisan aanu ku maalgelinay. haddii bankii Soomaaliland maanta 200,000 dollar lacag ku dhow ku invest gareeyay wakaalada biyaha oo waliba leh waqti go'an oo ah 1 sano inay lacagta ku soo celiyaan oo horumar la gaaray oo aan jirin. gudoomiyaha banka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa systemka cusub ee uu ku soo kordhiyay dalka. waa laga baqay inay wakaaladu dib u noqoto oo maareeyihii hore loo darsado, laakiin maanta waxaanu markhaati ka nahay inay hore uga socoto. maareeyaha oo ah nin fishan leh runtii oo fishan weyn leh iyo maareeya ku-xigeenka iyo shaqaalaha wakaalada. intaasi kadib wasiirka ayaa xariga ka jaray riigbiyoodyo kuwa kalena dhagax dhigay. sidoo kale waftigaasi waxay booqdeen xerada barakacayaasha Alaamin oo wakaalada biyaha Burco ay gaarsiisay biyo nadiif ah. Koronto, telefishinka caalamiga ee SUB magaalada Burco.